السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن ولا سلامة أصحابي مول بأدوك كشوكتان وولاشين ملكي وإذن له كسر دوادا كعم فرن يقلب فرن وملك دايما channel كده ملك دايما يفهم كده channel كيوتيوب كده ما أنتوا waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc yar oo ku saabsan dhinaca qurbaha maadaama ay soo socoto doorashadii oo exciting aan u nahay qofkii qabsan lahaa ilaahay waxaan ka rajeynaynaa qof wanaagsan oo wadani ah oo wadanka u roon oo hogaamiye dhab ah ilaahay inuu noo soo diro waayo qurbahan ku baaba'nay oo aan ku dhibaataysannahay runtii haddaynu nahay Soomaali marka waxaan jeclaan lahaa maanta ma aragtay mowduuceegu uu yahay ilaahayna aan ka baryaynaa in ma aragtay ilaahay sida qayrka ku jira ilaahay horta inuu noo wada waafajiyo talabaadna ilaahay sida ugu dhaqsaha badan uu noo keeno hogaamiye wanaagsan insha Allah ta'ala marka mowduuceegu ugu muhiimsan intaan gudaha u gelin waxaan jeclaan lahaa asxaabtayda qaaliga ah inta ila joogta inay subscribe yani inta ila joogta in ma aragtay aad ugu mahadsan yihiin inta igu cusubna oo ii timinana waxaan jeclaan lahaa inay iloobin subscribe-ka like-ta iyo sharing-ka hadduu alla yiraahdo waayo waxaan ahay qof ku cusub YouTube-ka insha Allah waxaan jeclahay YouTube-kayga in ma aragtay email wanaagsan uu gaaro idinkaana wax aan ku idinku ahay insha Allah waxaan rajeynayaa ma aragtay inaad taageertiin hadduu alla raali ka noqdo markaan mowduucayga haddaan mowduucayga toos aan u galo mowduucayga wuxuu ku saabsan yahay waa qurbaha dhibaatooyinka aan ka dhaxalnay aad bay u badan yihiin laakiin waxaan rabaa si kooban inaan uga hadlo hadduu alla yiraahdo waxaan ku horeysiinayaa insha Allah dhinaca qoyska waxaan ognahay qoysas badan oo qurbaha ku nool qurbaha jooga mise lagu asaasay inay ku burbureen isla markii muddo yar gudaheeda taasoo keenayso in ma aragtay xaq dhowrkii ninkii meesha uu ka baxay oo respect ayuu ku lahaa markuu wadanka joogay ninka qoyskiisa waa la xaq dhowrayay nin waxa loo arkayay ninkii reerka iyo in ma aragtay mas'uuliyadii oo ninka isna uu ku lahaa qoyska ay meesha ka baxday iyo aabnimadii oo ma aragtay oo meesha yimid wax la yiraahdo conflict iyo isdhexyaac taas waa mid waxyaalaha ugu waaweyn aan ka dhaxalnay qurbaha talabaad waxa weeye in qoysas badan ay caruurtoodii iyagoo u jeeda la qaatay saan ogsoonahayba oo maanta keli ku ah gurigooga oo gablan ka noqday lama oran karo gablane yani oo maanta waxba gacanta ku haynin 6 7 8 laga dareersaday taasna waa dhibaatooyinka ugu weyn ee aan ka dhaxalnay qurbaha ilaahayna sida ugu dhaqsaha badan ma aragta iyagana caruurtooda Allah ugu caliyo inaka Allah naga badbaadiyo qoysaska ma aragta ilmahooga iyo guryahooga dhaqanayo iyo talabaadna waxa weeye caruur badan oo ma aragtay iyagana gaar shiru naga wada galay oo ma aragtay siyaabooyin kala duwan u galeen ma aragtay iyagana ma aragtay aad bay dhibaato u yihiin ilmahaagiyo maanta ma aragtay xabsi kaaga jira iyadana waxa weeye dhibkeeda leedahay iyo murugteeda taas waa mid ta kalena waxa weeye caruur badan ayaa jirta maskaxda laga xaday oo ma aragtay la yiri ma rabta inaad lacag samaysid meesha kaliya lacag aad ku sameyn kartid waxa weeye inaad darooga aad gadid ilmihii waxa weeye aqligiisa kuma filno waxa laga yaabaa xataa inuu ka soo baxay qoys iska ma aragtay saas ma aragtay ilmaha maskaxda ka dhisin ilmaha ma aragtay wax badan u sheegin dhibaatooyinka yaala qurbaha waxba ka ogeen hooyadii iska aqoon yar tahay aabihii ma aragtay weligiisa qalin buug soo qaadin oo waxba aqoonin sharciyadii ka dhacdhacsaneen wadankaas ay degan yihiin marka ilmihii iska dhagaxiran saa ay tahayna ay ku dhaleen wadankii laakiin ilmaha kaliya ay u tarbiyayeen inay cunto siiyaan kaliya marka taas keenayso in ilmihii isagu waxba ogeen maskaxda laga xado oo la yiraahdo waxa weeye lacagad sameeyay meesha kaliya aad ku sameeyay ku sameyn kartidna waxa weeye waa inaad
darooga aad gadid saasna ilmihii mustaqbalkiisa uu ku waayo taasna waa dhibaatooyinka ugu waaweyn aan ka dhaxalnay maxaa la yiraahdaa qurbaha talabaadna waxa weeye aan raba inaan ka hadlo dhinaca caafimaadka waxaan ahay horta qof oo wadankan caafimaadka ku baratay dhaqaatiir badan la soo shaqaysay seminaaro badan ma aragta ka qayb gashay meelo badan oo kala duwanna wadankan aan joogo Finland aan kala soo shaqeeyay dad badan iyo ma aragtay experience badan leh 12 sano ayaan ka shaqeynaya shaqooyinka caafimaadka waxa jira iyadana dhibaatooyin badan oo aan ka dhaxalnay dhinacan qurbaha oo dhinaca ma aragtay dhimirka waxa jiro dad badan oo Soomaaliya oo daawooyin ku socda taasoo keenayso depression dhinaca qoyska ha noqdo dhinaca ilmihii oo laga qaatay ha noqdo dhinaca ma aragtay noloshii ku adkaatay ha noqoto taasna waxa weeye dhibaato kale oo ku soo saaciday Soomaalida oo ku nool qurbaha ta kalena waxa weeye qaar baaba waashay oo ma aragtay maskaxdii dhanba ka tagtay oo isbitaalada lagu haayaa qaar kuwaas xataa aan la soo shaqeeyay waxaad arkaysaa in Soomaaliya ku leh walaal Soomaali miya tahay waxa weeye caad u hadlaya laakiin haddana lagu leeyahay waxa uu waalaya wixii uu joogo isbedelayo marka ilaahay iyagana ma aragtay maskaxdooda Allah ma aragtay ha u soo celiyo caafimaadna ha siiyo inakana ilaahay dhibaatadaas iyo wax la midana ilaahay ha naga haayo marka dhibaatooyin badan ay iska jiro runtii oo laga dhaxlay qurbahan marka aan waxaan oran lahaa Soomaalida u soo yaacayso qurbaha ma wanaagsano qurbo qof walba wadankiisu sharaf ku leeyahay qof walbana ma aragtay wadankiisu karaamo ku leeyahay Soomaalida been kuma maahdo laakiin been way sheegtaa Soomaalida waxay kuma maahday dalkaaga maxay yiraahdaan wadan kale dareen ku joog weeyaan qurbo dareen ku joog weeyaan taas been kuma sheegin ta kale aan raba inaan ka hadlo waxa weeye taadan dhinaca caafimaadka aan ma aragtay meeshaas uga baxo ta kale aan raba inaan ka hadlo waxa weeye dhinaca xaq dhowrka waalidka oo marka wadanka joognay la qiimeyn jiray horta qiimeyntii iyo xaq dhowrkii iyo respecti meesha ka baxay waayo waxa weeye meeshan ilmihiya xuquuq xoog leh ilmihiya isku mujtamaciya naga xoog badiya mujtamaciya iskuuladii ayaa ma aragtay loogu soo sheekeynaya caruurtii oo ficooga ahaa ayaa xuquuq leh oo ma aragtay leeyahay la sheekeysanayo saaxiib markay la dhigtaan qof ilmo finish ah wuxuu leeyahay hooyada kulama hadli karto aabaha kulama hadli karo haday kula hadlaan waxa weeye xaq waxa tagaysa meesha qolo waxa joogto oo leeyahay socialka qoladaas ku caawinayso meel baa lagu dajinayaa qof kula hadli karo ma lahan marka taasna waxa ay keentay in waalidkii iyagii meeshii laga cabsanayay iyagii cabsi ay gasho ilmihii uu la hadli kari la yihiin ay ma aragtay ay waani kari la yihiin oo waalidkiiba meeshii isagiiba gabbanayo meeshii ilmaha inuu gabbada ahaayo dhuunto waalidkii aaba caburan oo aamusan taasna waxa weeye respective waalidka ayaa meesha ka baxay waana dhibaatooyinka aan kala kulannay qurbaha ta kalena waxa weeye iyo ta kalena waxa weeye dhaqankii oo ma aragtay meesha ka baxay wiilkii iyo gabadhii aad dhashay oo iyagii iska dhaadhiciyay dee wadan free ayaan joognaa oo waxaan rabnaa sameynaynaa we are independent waxaan rabnaa sameynaa qof nala hadli kara ma lahan marka qof ilmo kastaba ha noqdo wiil iyo gabar wuxuu isaga go'aansada noloshiisa suu u rabo ayuu u hogaansamaanaya waayo waalidkii roolkiisa meesha ka baxay rool waxaan ka wadaa positionkii waalidka iyo tarbiyadii waalidka ayaa meesha ka baxay wuxuu ilaahay ku hanuuniyaa hanuunsan ilmo iska hanuunsan oo ilaahay ma aragtay baari ka dhigayna oo iska buuxaan oo waalidka maqlayo laakiin intooda badan waxa weeye aad baa loogu qasaaray qurbaha oo ma aragtay loogu dhibaataysan yahay runtii caruurta
oo waalidkii maaragtay iyagaaba gabasho ku jira. taas waa mid. hadday noqoto dhinaca diinta uu ilmihii isaga uu xor u yahay diinta uu rabo uu qaato, oo la leeyahay adi qof kula hadli kara malahan, wadan waxaad joogtaa oo xor ah, wadan waxaad joogtaa dimuqraati ah, diinta aad rabtid maanta adaa go-aansan kartid, adaana ma aragtay qaadan kartid. taasna waa mid. iyo ta kalena waxa weeye meesha taala in dhalinyaradii hadda generationkan jira iyo kuwa soo socdaba aan u jeedo saasaantooda hadda ay soo bateen qaar oo ilaahay abuurista u abuuray bedelay oo kuleh ma aragtay inaka sidana jeclaysanay, haddaan dhidig nahay inaan dhaban iska dhigno, haddaan dhaban nahay inaan dhidig iska dhigno. yani waxaan ka wadaa haddaan nin nahay inaan naag iska dhigno, haddaan naag aan nahayna inaan nin iska dhigno. marka taasna waa dhibaatooyinka ugu weyn oo qurbaha lagala kulmay. marka ilaahay iyagana ha soo hanuuniyo oo xaqa ha tuso. inakana ilaahay ma aragta wax jirkeena kasoo jaray, ilaahay ma aragta iyagana dhinacaas ma aragta ma geeyo. taasna waxa weeye waa mid. iyo talabaadna dhibaatada kale oo jirta waxa weeye qurbaha lagala kulmay wixii laga xishoon jiray oo noqday ma aragtay wax lagu faano. wixii ma aragtay xishoodkii oo laga tagay oo noqday ma aragtay inuu qofkii uu ku leeyahay wow waxaas waxa weeye qoftaas deese waxay ku dhaqmayso dee waa wax wanaagsan, laakiin saa ay tahay dhinac kale marka loo eego uu yahay wax xun. marka wallaahi dhibaatooyin badana iska jiro oo qurbaha lagala kulmay. ilaahay ma aragtay horta dhibkan allaha naga saaro. meel walba muslim uu joogo oo qurbahan wadamadan gaalada ilaahay ma aragtay ha ka badbaadiyo sharta gaalada. waxaan kaloo aan jeclaystay inaan maanta ma aragtay aada aan ugu hambaliyeeyo maadaama wadankii uu doorasho ka socoto, in ma aragtay ilaahay ma aragtay sida kheyrka qaba oo dhaqsada ugu badan ugu dhaqsaha badan in wadanka doorashadeeda ay ku dhamaato oo guul laga gaaro oo hogaamiye fiican aan helno hadduu alla yiraahdo. sida ugu dhaqsaha badanna ma aragtay wadan horumar leh oo ma aragtay aan kusoo dalxiisno, aan ma aragtay qabowgan uga soo dhuumano, oo ma aragtay dhibaato jirin, oo ma aragtay xaq iyo xuquuq rasmi aad ku leedahay, aad dareemaysa in wadankaagii uu yahay hooyo. ilaahay sida ugu dhaqsaha badan ha noo soo dedejiyo. waxaana u rajeynayaa soomaalida meel walba adduunka ay ka joogto guul iyo ma aragtay bashbash iyo barwaaqo. marka saasaan kusoo gabagabeynayaa youtube-kayga maanta clipkayga. insha allah waxaan jeclahay mar walba in ma aragtay mawduucyo oo sidan oo kala oo weli kasii faahfaahsan maadaama hadda aan waqtiga aada iigu yaryahay oo ma aragtay shaqa uu sii ordayo, laakiin waxaan jeclaan lahaa in ma aragtay insha allah mawduucyo sida noocan oo kale ah in aan soo dhigo iyo kuwo kaloo badan oo ma aragtay oo aad ka faa'iidaysataan. marka insha allah sidaa i nabadgelyo iyo kulanti dambe insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا ولاشينا ملكي هنا إلوبنا سبسكرايبك سدا إنا بتقليا. السلام عليكم.